dagaalkii u dhexeeyay Soomaaliya iyo Mareykanka intii u dhaxaysay 1992 ilaa 1993 waa mid ka mid ah dhacdooyinka ugu xiisaha badan ee taariikhda Soomaalida. Howlgalkaasi oo looga dan lahaa in lagu soo celiyo amniga Soomaaliya maadaama xilligaasi ay dhacday dowladdii Soomaaliyeed ee uu hogaaminayay Maxamed Siyaad Barre. Muuqaalkeena maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa howlgalkii Mareykanka uu ka fuliyay Soomaaliya iyo dhibaatadii ka soo gaartay ciidankiisa, taas oo keentay in lagu jijiido meedkoodii magaalada Muqdisho. Ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. inta aynan guda gelin muuqaalkeena maanta, fadlan daawade haddaad nagu cusub tahay nagu soo beer, haddaad hore nala joogtayna fadlan muuqaalka like saar oo la wadaaga asxaabtaada. Burburkii dowladdii Maxamed Siyaad Barre ee 1991 ayaa sababtay fawdo iyo burbur oo soo gaaray magaaladii Muqdisho, taas oo sababtay in kooxo hubeysan ay ku loolamaan awoodda waddanka. Tani waxay dhalisay macaluul iyo xaalad bini'aadantinimo oo aad u daran, taas oo keentay in beesha caalamku ay isku dayaan inay caawiyaan ummadda Soomaaliyeed. Qaramada Midoobay waxay bilaabeen howlgal loogu magac daray soo celinta rajada Soomaaliya, taas oo ay rabeen inay ku caawiyaan shacabkii Soomaaliyeed ee dhibaatada ka soo gaartay dagaaladaasi. Balse markii la soo gaarsiiyay mucaawanadii dalka Soomaaliya, waxaa dhexda u galay jabhado hubeysan oo xilligaasi ku loolamayay awooddii Soomaaliya. Sidaas daraaddeed, Mareykanka ayaa go'aansaday inuu bilaabo howlgal magaciisa loogu magac daray soo celinta amniga Soomaaliya, si loo xaqiijiyo amniga iyo kaalmada bini'aadantinimo ee soo gaaraysa shacabka Soomaaliyeed, isla markaana loo gaarsiiyo inta kaleeto dhibaataysan. Waxaa sidoo kaleeto taageeray dhammaan reer galbeedkii oo dhan. Waxay ku taageereen Mareykanka inuu qaado howlgalkaasi si loo sugo amniga Soomaaliya. Bishii December ee sanadkii 1992, ciidamo Mareykan iyo kuwo Qaramada Midoobay ay taageeraysay ayaa iskaashaday inay soo galaan Soomaaliya si ay u xaqiijiyaan nabadgelyada, taas oo suurtagal ka dhigayso in la gaarsiiyo gargaarka bini'aadantinimo shacabka Soomaaliyeed. Si kastaba ha ahaatee, xasaaradooyin ayaa ka soo cusboonaaday magaalada Muqdisho, gaar ahaan intii u dhaxaysay ciidamada Mareykanka iyo maleeshiyaadkii Soomaaliyeed oo ugu horeeyaan kuwa ka amar qaata Generaal Maxamed Faarax Ciidiid. Taariikhdu markii ahayd 3 Oktoobar 1993, howlgalka gaarka ahi oo uu Mareykanku fulinayay, kaas oo loogu talagalay in lagu qaado maleeshiyaadkii ka talinayay dalka Soomaaliya. Markii dambe, dagaalkii ayaa isku rogay mid militari oo baaxad leh, taas oo Mareykanku gaarsiisay inuu soo kiciyo diyaaradihiisa militari. Dagaalkii Muqdisho wuxuu socday ku dhawaad 18 saacadood, waxaana ku dhintay 18 askari oo ka tirsan ciidanka Mareykanka, halka 70 kaleetana ay ku dhaawacmeen. Dhanka Soomaalida waxaa ku dhintay kumanaan qof oo Soomaaliyeed, halka ay ku dhaawacmeen kumanaan kaleeto Soomaaliyeed. Sawirada iyo muuqaalada la soo bandhigayay ayaa muujinayay in ciidanka Mareykanka meedkoodii lagu jiidayay magaalada Muqdisho, taas oo Mareykanku gelisay wejigabax aad u daran maadaama meeshaas ay ku loolamayeen jabhadooyin hubeysan, taas oo Mareykanka ku qasabtay inuu markiiba ku dhawaaqo inuu ciidankiisa kala baxay dalka Soomaaliya. Taas oo caalamka tusisay in Mareykanka uu yahay dowlad daciif ah, aysan iska celin karin jabhado hubeysan, balse mar walba ay ku xoogan yihiin dhanka duqeymaha cirka. Taas oo mahmahyo looga soo qaato sida dhulalka Carabta ayaa looga yaqaanaa Mareykanka, haddii aadna soo aadid waxaan kugu samayn doonaa sidii Soomaaliya oo kaleeto. Hadalkaasi wuxuu noqday mahmah laga isticmaalo dalalka Carabta. Howlgalkii Mareykanka ee Soomaaliya waxaa loo arkaa inay ku guuldareysteen maadaama ay soo celin waayeen amnigii Soomaaliya. Waxaa sidoo kaleeto si weyn loogu dhaliilay qaabka Mareykanka iyo Qaramada Midoobay ay u maamuleen xaaladda Soomaaliya, taas oo lagu tilmaamay inaysan fahmin dhaqanka iyo siyaasadda gudaha ee dalka Soomaaliya, taas oo sababtay in Mareykanka iyo Qaramada Midoobay ay ka soo gaarto meeshaas wejigabax aad u daran.
Dagaalka Maraykanka ee Soomaaliya wuxuu sidoo kaleeto saameyn ku yeeshay siyaasadda arrimaha dibadda ee Maraykanka, iyadoo Maraykanku noqday kuwo uu ka taxadaro inuu galo dagaal saf ballaaran uuna la galo maleeshiyaadka kaleeto oo ku hubeysan dalalka muslimiinta, taas oo gelin karto in Maraykanka uu mar labaad uu la kulmo wejigabax aad u daran. Dagaalkii Soomaaliya iyo Maraykanka wuxuu muujiyey sida ay u adag tahay in la farageliyo dal ay ka jiraan colaado sokeeye, taas oo calaamad u noqotay caalamka oo idil, taas oo ay ka tusaale qaateen ciidanka Maraykanka iyo bulshada caalamka. Dagaalka intii uu socday, Maraykanka waxaa laga soo riday 2 diyaaradood oo loo yaqaano Black Dawn, kuwaas oo caan ka noqday baraha bulshada markii la soo bandhigay diyaaradahaas burburkoodii. Maraykanka ayaa isla markiiba ku dhawaaqay inuu ciidankiisii kala baxay dalka Soomaaliya. Maalinkaas wixii ka dambeeyay, Maraykanka iyo reer galbeedkuba waxay garwaaqsadeen in Soomaalidu ay yihiin kuwo halis ku ah danahooda gobolka, taas oo Maraykanka ku qasabtay iyo reer galbeedkuba inay Soomaaliya dowladdeedu ay xilfaha u laabaan, taas oo keentay burbur ilaa maantadan laga soo kaban waayo dalka Soomaaliya. Haddaba qof walba oo Soomaali ah waa inuu ogaadaa reer galbeedkuba inaysan doonaynin in Soomaalidu ay marnaba noqdaan dowlad awood badan, taas oo hadhow dambe caqabad weyn ku noqon karta danaha reer galbeedka ee gobolka, maadaama Soomaalida loo arko inay yihiin badankood Muslim, taas oo keentay inay diintooda aad uga adag yihiin, taas oo Maraykanka tusisay in Soomaalidu aan inta badan la kala qiibin karin, taas oo keentay in Soomaalidu maantu dhinacyo loo kala xiro oona hadal iska maqli waayaan, taas oo Maraykanku isaguna fursad uu ku helay inuu iska iloobo dalkii laayay ciidankiisa, kaas oo mahmahyo looga soo qaato dalalka muslimiinta. Qof walba oo Soomaaliyeed waa inuu ogaadaa in reer galbeedku aysan doonaynin dowlad Soomaaliyeed oo awood leh, taas oo adduunka dhan xukumi karta, maadaama ay yihiin badankood muslimiin, diintoodana ku adag, taas oo Maraykanku ilaa maantadan ay ka sheekeeyaan, balse jugtii soo gaartay way qarsadaan, maadaama Soomaalidu ay gaarsiiyeen jug aad u weyn. Alle subxaanahu wa tacaala ayaynu uga baryeynaa inuu dalkeena ka dhigo dal amni ah oo ummadda Soomaaliyeed qulubtoodii ay iswaafaqsan yihiin. Alle subxaanahu wa tacaala ha ka dulqaado dagaalka ku socdo walaalaheena Falastiin. Mar walba aynu u ducayn walaalaheena Falastiin, kuwaasoo ku jiro muddo ku dhawaad hadda 1 sano oo uu ku socdo dagaalka. Haddaba daawade, awoodda Alle subxaanahu wa tacaala uu dhex dhigay maskaxdaadii waa inaad ka faa'iidaysataa oo aad uga faa'iidaysaa dalkaadii iyo dadkaadii, taas oo maalinta qiyaama kuu noqon doonto markhaati cad oo Alle subxaanahu wa tacaala aad ula tagi doontid. Qof walba oo bini'aadam ahi wuxuu leeyahay maskax, maskaxdaasi waa inaynu ka faa'iidaysanaa inuu dadkeena iyo dalkeen wax ugu qabanaa. Muuqaalkeena maanta anta aynu kusoo gabagabaynaynaa. Fadlan daawade, haddaad nagu cusub tahay nagu soo bir, haddaad horey nala joogtayna fadlan muuqaalka like saar oo la wadaag asxaabtaada. Inta aynu ku kulmi doonno muuqaalkan muuqaalkiisa kaleeto, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.